ayaa dadka gobolkaasi baryahan aada uga sheekaynayeen arrintaas oo ahayd nin roob iyo dab isla socda bal sheekadaas noo faahfaahisay waxu jireen haruunow sheekadan waa sheeko cajiib ah oo waxay ka dhacday tuulada baraagaha qol oo ku dhow dhaxar gobolka Sanaag nin magaciisa la yiraahdo Maxamuud Xasan Awraage oo 72 jir ah ayaa waxa ku dhacday mucjiso roob iyo dab iyo biyo isdaba socdo ninkaasi mucjisadu waxay ugu bilaabatay bilaawgii koowaad roob ayaa kaligiis ku da'ay waqooynayay oo dadka ag taagan markay korkiisa taabtaan waxay dareemayaan biyihii korkiisa saarnaa oo dadka kalena aynu ku da'eenin maalmo kadib waxay isku bedeshay arrintii habeen asagoo fadhiyo xerada xoolaha ay ku soo hoydaan agteeda ayaa xeradii dab u ka kacay qoysaskii meesha joogay iyo dadkii ayaa soo cararo ilmihii meelaha ku ciyaaraya la garaaco waxa la dhahay dabka idinka bilaabay carara markaas kadib ayuu haddana meel kale fariisto dab ayaa ka bilaabay marka ninkii guriyihii dhan ayaa ka gubtay oo dab ayaa daba socdo oo waa la damin waaye oo meeshuu fariistaba way gubanaysaa korkiisana wax dhaawac kuma yaalo wax yar ka hor ayaan waraysi la yeeshay ninkaas bal nala wadaaga dhegaystayaal waraysiga oo sidatan u dhacay korka dab ka dhixmayo waxaa gubanaya waa guryihii iyo xeryihii baa gubanaya ilaahay qaadir ahaa dadkii waa ka bixiyey marka dabka halkuu ka imaanayaa marka korkaada muu ka imaanayaa mise dabka halkuu ka imaanayaa dhegaystayaasha waxay rabaan inay ogaadaan dab rabaaniya meeshuu ka imanayo ilaahay baa qiimanka inta korka dab ka bixi maayo waa caadi marka dabka rabaaniga ma aduu kula socdaa oo meel walbo aa fariisidid uu ku daba socdaa macnaha dee xeradii iyo gurigii qof ahaan markaa geedka alaabta lala tegay cidladayo alaabtii waxna ku gubteen dhuxushaasina adinka taa ku dhacday mooyaane inta kale de waa gurigii iyo xeryihii marka wax xanuun ah oo adiga korkaada aad dareemaysid ma laha miya ma jiraan kuwaa laleeyahay un haddee sirkaaldarooyo iska waayeelnimo mooye jirku waxma qabo waa gartay arrintan goorma ayay kugu bilaabatay arrinta kale waxay bilaabatay muddo adigoo hadeer dabku wuxuu bilowday waa caawa ku 15 baan u maleeyaa iyo caawa ku 14 waxay tahay hadda marka maxaa daawo oo lagugu sameeyay adiga hadda ilaahay idankii iyo quraan iyo dee khayraad ilaahay loola cuskaray yani weeyaan baan ku rajaynaya waxaad hadayti ii sheegtay in roob uu marka hore ka bilowday arrintan oo korkaada uu ku da'ayay qofkii korkaada taabto qoyaanka ma dareemaya waa dareemaya ha haye marka keligaa qooyeysa oo roob uu kugu da'ayay miya roobku waa ruuxa keliya weeye wax ugu dambayntii bal waxaad iiga sheekaysaa hadda sideed rabtaan inaad micnaha maxaa idin tala ah hadda maadaama adigii aad xanuunsan tahay oo korkaada meeshii aad tagtaba dab uu ka kacayo oo reerihiina guryo la-aan ay yihiin maxaa idin dan hadda maxaa la samaynayaa waxaanu isku xidhaynaa ilaahii qaadirahaa iyo wixii kaleeto dee helo caqliha ama helo cilmiga iyagu wixii talo iyo dee tusaale kaleba ay nagu kordhiyaan laakiin rabbi un baanu dee ku xidhannahay mid kasta ama caafimaad ha noqoto ama haatan hawshaa kale ilaah iska leeyaha ha noqoto waxaad ii sheegtay magaalada markaad aaday oo aad rabteen qayladhaan inaad magaalada geysaan gaarigii aad raacdeen uu dab ka kacay saa sax miya mise waa jirtaa taas waxaa gaarigii gurigaa yimid oo raashinka keenay gaarigii ma gudan laakiin aartay kaasi waxau ahaa Maxamuud Xasan Awraage oo ku nool meel tuulo u dhow deegaanka lagu magacaabo baraagaha qol oo u waramayay Maxamuud Ibraahim Cali haddaba arrinta